السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالية Ogaden ku nool iyo dhamaan guud ahaan geeska Afrika salaanta islaamka idinku salaameeyaa saad la socotaan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay u halgamaysaa si xaqa Soomaalida Ogaden ay dawladda Itoobiya ay muddada badan ay gacanta ku haysay ay u heli lahaayeen ay ka tashigooda halganka shacabka Soomaalida Ogaden wuxuu bilowday xoogiisu kadib markii dagaalkii labaad adduunka dawladihii gumaysiga ahaa ee Afrika gumaysanayay ay u ogolaadeen shucuubta Afrika inay xaqooda ay ayahooda ka tashadaan halkaas oo dawlado cusub Afrika ay ka bilowdeen nasiib darro laakiin Soomaalida Ogaden yani lagu daray Itoobiya intii ka dambeysay dadkaas cadaalad darro badan baa ku dhacday dhibaato badan baa soo gaadhay waxayna u istaageen xaqooda inay maartay u halgamaan dagaaladii waad la socoteen dagaaladaas waxay dhaceen kontumeeyadii nasrullaahi lixdameeyadii geeshkii toddobaatameeyadii dagaaladii waaweynaa ee 77 ka ahaa dhammaan shacabka weligii ma joojin inuu halgankiisa aayihiisa ku raadsanayay uu wado saad la socoteen 1991 geeska Afrika isbedel badan baa ka dhacay marka muxuu ahaa jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden oo markaa u taagnaa calanka u waday halgankii dheeraa ee shacabka Soomaalida Ogaden ay ku jireen waxay goosatay in wadada nabadda ay ku raadiso xaqeeda ayadoo heshiis la gashay maamulkii markaa Itoobiya qabsaday TPLF halkaasoo ay dalkii ku noqotay shacabka Soomaalida Ogaden ay ku dhisteen ismaamul dhab ah oo muddo 2 sano hayay kaasoo doonistii shacabka iyo danahoodii si wanaagsan u habeystay nasiib darro maamulka TPLF xilligaa joogay isagoo u arkayay horumarka degdega ay Soomaali gaadhay ayaa waxay u arkeen khatar inay ku tahay taasoo ay cadaadis badan saareen kadibna markii baarlamaanka Soomaaliyeed uu weydiistay maadaama xaqiisii loo diiday inuu sidoo rabay isu maamulo ay ayahooda inay ka tashadaan waatii ay TPLF weerarka ku qaaday xarumihii jabhadda baarlamaankii burburisay intii ka dambeysay xilligaas 1994 ka ama 1994 ilaa hadda waxaa socday hardan culus oo ay TPLF dhibaato badan shacabka Soomaalida u geysatay taariikhdooda intii Itoobiya gumaysigeedu haystay ilaa maanta dhibka TPLF u geysatay mid aan la qiyaasi karin buu ahaa laakiin shacabkaas wuu mintaday wuu istaagay muddo badan halganka uu socday markii halganku kaligood ku kaliyeystay oo dadkii walaalada Soomaaliyeed laftooda ay awal hore gacanta u geysan jireen ay uga helayeen TPLF waxay ONLF goosatay in shucuubta Itoobiya maaragtay ay muxuu ahaa isla kaashato oo ayaguna dhibaato haysatay sabab socoteen shucuubta Oromo Amhara Afar Sidama Gambela Benishangul iyo shucuub badan Itoobiyana inay yani dhinacooda iska wada raaceen oo ay kacdoon culus ku qaadeen maamulkii TPLF kaasoo aakhirkii sanadkii 2015 abuuray in kacdoon ballaaran uu ka dhasho Itoobiya kacdoonkaasoo isbedel weyn oo taariikhda Itoobiya ka dhaliyay madaba ayadoo duruufahaas ummadda Soomaaliyeed soo martay ayadoo dhibka ugu badan Itoobiya gumaysigii iyo muxuu ahaa yani maamuladii xumaa ee TPLF ay waday culayska ugu badan iyo genocide-ka weyn Ogaden ka geystay ayaa hadda waxaa ka abuurmay isbedel cusub isbedelkaasoo gilgilay geeska Afrika xilliga ayada ku aadan ay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden qabsatay shirweyne ballaaran shirka ay jabhaddu qabsatay waxay dib u habeyn weyn ku sameysay nidaamkeedii maamulka shuruucdeedii iyo guud ahaan istiraatiijiyadii halganada ay shacabka Soomaalida Ogaden ay ku raadinayeen xaqooda ay ka tashiga shirkaas oo ay ka soo baxeen go'aamo dhaxalgala isla markaana waxa weeyaan ayadoo maamulka Itoobiya isbedelka ku dhacay Itoobiya ee prime minister cusub lagu doortay uu ka soo muuqdo isbedelo muxuu ahaa positive oo muujinaya yani hor socda oo ay ka mid tahay ayagoo maaragtay shuruucdii qalafsanayd ee khaladka ahayd ee TPLF ay shacabka guud ahaan muxuu ahaa Itoobiya ay ku soo rogeen ee muxuu ama cunaqabataynta ahaa ama muxuu ahaa ayagoo argagixisa ay dadka kale argagixis ku sheegeen ay bedeleen ayagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah shucuubta iyo ururadaas hal siyaasi ay ogol yihiin oo wada hadal iyo nabad ku baaqay duruufahaas ayagu marka jabhaddu tixgelinayso waxay u aragtay duruufo keeni kara in maaragtay dhibaatooyinkii ka jira geeska Afrika khaasatan Ogaden xal nabadeed yani lagu raadin karo iyo wada hadal isla markaana sababta socotaan waxa geeska Afrika kale ka dhacay يعني دولة إريتريا أو سلديق وهاي شعوبتها هالجميسة إثيوبيا
ayada lafteedu goosatay ayagii yani isfaham uu ka abuurmay ayaga iyo maamulka cusub ee Ethiopia qabsaday taasoo fursad cusub abuurtay in yani halkaas ay ka dhalan karto yani ay gacan ka geysan karaan yani in si nabadgelyo xal ku dhisan lagu gaari karo khilaafaadkii u dhaxeeyay muxuu shucuubta kala duwan Ethiopia iyo dawladda maamulka haysa duruufahaas markay isu tageen marka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay u aragtaa in wadada ay abuurmi karto wada xaq shacabka Soomaalida Ogaden ay ka tashigiisa iyo uu ku doonayay maaragtay muxuu inuu maamulkiisa ayahiisa kaga tashado si nabadgelyo ay fududaan karto in wada hadal lagu gaaro dhinaca kale waxa weeyaan saad la socotaan waxa ka abuurmay TPLF waxay ka samaysay Soomaalida Ogaden ismaamul waxay ugu magac darto ayadoo ay abuurtay oo dhibaato badan shacabka u geystay kaasoo keenay in yani taariikhda markii koowaad shacabkeenu uu gumaysi dhaba dareemo yani gumaysiga hore gumaysi maskaxeed buu ahaa laakiin gumaysi dhaba oo nooc walba leh shacabkeena loo geystay taasoo marka ayada lafteedu maaragtay muxuu ahaa duruufaha adag ee soo wajahay shacabkaas ay muuqato hadda inuu isbedel degdeg ku dhici karo marka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden oo waxyaabaha duruufahaas oo la tixgelinaysa waxa u muuqata in maaragtay maanta ay abuuran tahay fursad weyn oo shacabka la soo food saartay saa daraadeed jabhaddu waxay goosatay kow in ay qaban doonto shir qaran oo shacabka Soomaalida Ogaden uu kaga tashan doono mustaqbalka iyo sidii ula jaan qaadi lahaa isbedelada Ethiopia ka socda isla markaana jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay goosatay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto baaqi dawladda Ethiopia ka soo yaray ee wada hadalka ah si nabad in loo wada hadlo taasoo ay u diyaar garoobi doonto insha Allah haddii ay rajeynayso in xal waara laga gaaro qadiyadda shacabka Soomaalida Ogaden iyo sida gobolka guud ahaan nabad loogu dabaali lahaa marka hadday ka dhab noqoto dawladda Ethiopia say ay ku ballan qaaday in si nabadgelyo xal lagu wada raadin doono jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden diyaar ba u tahay in arrintaas saas ayada ay uga qayb gasho dhinaca kale waxa weyn jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan u soo jeedinaysaa inay isbedelada u diyaar garoobaan inay ka faa'iideystaan inay u diyaar garoobaan haddii ay abuurmi karto jawi nabadeed in xaqooda ay ku helaan inay maaragtay ka qayb galaan waxaa kaloo ayadana jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden u aragtaa thaman aad u badan qaali ah yaa lagu bixiyay halganka 27 sano ay ka socday Ogaden boqolaal kun oo dhalinyaro ku geeriyootay shacab badan oo ciroole caamo haween rag ayaa dhiigooda u huray si xaqooda ay u sugi lahaayeen marka thamanka qaaliga inuusan meel cod ku khasaarin inaan si fudud yani aan dad opportunistiyaal ay maaragtay khadka uga lumin jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay ku baaqaysaa in arrimahan isbedelka ah si midnimo lagu wajaho wada tashi ah in isku hal cod la yeesho in danaha midnimo iyo muxuu ahaa iyo ujeedooyinka shacabka Soomaalida Ogaden ay leeyihiin inay ku gaari karaan ayagoo gacmaha isqabsada si wada jira wayna horseedi doontaa jabhaddu waxa weeyaan gacan weyn bay ka geysan doontaa in la abuuro jawi ah ummadda Soomaalida ku midowdo ummadda Soomaalida ayaheeda uga wada tashato danaheeda ay maaragtay sidii hadba ay moodo ay muxuu ahaa gacan uga geysan lahayd marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden gudaha Ogaden jooga dibadda jooga inay u diyaar garoobaan in hadduu isbedel yimaado siday u xasilin lahaayeen dalkoodii siday muxuu ahaa jawigaas midnimada iyo walaaltinimada iyo xaqooda ay maaragtay muxuu ahaa ay ku mintidaan ay uga qayb geli lahaayeen sidoo kale shacabka Soomaalida Ogaden 9 gobol uu ku nool yahay dibadii gudaba inay ayaguna u diyaar garoobaan in muxuu ahaa ay duruufta ka abuurmi doonto meesha nooc rabo u noqdaba sida danta ummadda ugu jirta in maaragtay loo wada wajaho intaas ayaa yani jeclaan lahay maanta jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden inay ummadda Soomaalida soo jeediso dhinaca kalena waxa weeyaan dawladda Ethiopia ayadana waxaan ugu baaqaynaa dhawaaqi ay ku dhawaaqday ee ahaa inay diyaar u tahay in xal waara dhibaatada laga gaaro si nabadgelyo ah mushkiladihii jiray loo wada wajaho inay ka dhabayso ilaa ay hadda waxaan ognahay in dalkii Soomaalida ah weli uu cadaadiska saaran yahay inkastoo ay tallaabooyin ay muuqanayaan yani furfurnaana haddana weli in duruufihii xirnaanta weli inay jiraan marka inay baaqeedii ka dhabayso inay u diyaar garo yani ay ugu baaqdo ummadda Soomaaliyeed inay si nabadgelyo wada xal waara lagu gaaro
ان تاسو ku iman karta inay si dhab ah ama hadii la wada hadlayo diyaar u tahay in xal muxuu ahaa in waari kara oo nabadgelyo keeni kara iyadoo dhinaca diyaar uga noqoto sidoo kalena waxa weeyaan waxaan ayadana ka filaynaa ugu baaqaynaa dawladaha geeska Afrika laga soo bilaabo Uganda, Kenya, Somali, Djibouti inay ayaguna gacan ka geystaan si gobolkan loogu soo dabaal lahaa nabad waarta oo cadaalad ku dhisan oo shucuubta xuquuqdooda lagu ilaalinayo isla markaana waxa weeyaan ayna cid gooni yani ayna ugu amar ku taagleyn karin geeska Afrika marka anagu haddaan nahay jabada wadani xoreynta Ogaden waxaan u sheegaynaa adduunka ummadeena iyo dhamaan cid ay khusayso wax dhibaatooyin geeska Afrika ka jira inaan diyaar u nahay si nabadgelyo aan xal lagu raadiyo halkaas oo noqon kara mid saldhig u noqda yani saad la socotaan qadiyada Soomaalida Ogaden waxay sal u ahayd dhibaatooyinka geeska Afrika ka dhashay isbedeladii ka dhashay kontonkii sano u dambeeyay يعني نضع ووعد يعني خلافات كي دجالدي علاقة كأبور تجيس أفريقيا صدق هذا القضية الصومالية وقاعدين وحكاية تيرك أو إن كم إذا مركا إن لقوا ذا قيب قالوا وأدون كنوع عاوية دولة جيس أفريقيا نوع عاويان دولة إثيوبيا نودير قالوا أنا نودير قالوا شعب كان نودير قالوا دمان سيدي أنوه اللين حل معقولة وواره وكان إنكر دونيس الشعب كيجا إسلام مركانا لنا عول بابا باهيدو دبولي كره ان ساسا جعلناهي waxaan rajeynaa haduu ilaahay raado marno in maartay talaabooyinka wixii ka soo kordhana waan la socodsiin doonaa shacabkayga marka waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dhamaan waxaan rajeynaynaa in geeska Afrika uu noqdo meel ay nabad maxaa ka xasisho meel xuquuqda shucuubta loo ogolaado meel aayaha shacabka qoomiyad walba oo ku nool geeska Afrika ay maartay xaqeeda ay si buuxda ay uga faa'iideysato ay si nabadgelyo lagu wada noolaado waxaana taana waxay keeni kartaa geeska Afrika oo runtii marka laga hadlo muxuu ahaa in Afrika marka la yiraahdo ama bari ama galbeed ama waqooyi yani waa meesha ugu qanisan geeska Afrika baday leedahay geeska Afrika shidaal bay leedahay xoolay leedahay wabiyay leedahay biyay leedahay marka haddii nabad ka aslaaxdo waxa laga yaabaa geeska Afrika inuu noqdo meesha Afrika ay noqoto saldhigga waa muxuu ahaa dhaqaaleeda iyo horumarkeeda marka saasan rajeynaynaa dhamaan waana idin wada salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan shacabkayga u sheegaynaa jabhadda wadaniga xoreynta Ogaden waxay u dhalatay waxay u istaagtay in xaqa ay ka tashiga Soomaalida Ogaden ay sugto in mana ka tanaazulayso mabaadiideedii iyo ujeedadeedii wada walba ay ku heli karto xaqa shacabka Soomaalida Ogaden in ay si dhab uga tashadaan way maraysaa mana ka harayso